waxa weeyaan su-aashadii saddexaad baan u gudbaynaa waxaan mataqaanaa jirtay in qaasim axmed diini oo ah mas-uul sare oo xisbigiina ka tirsan inuu waayahan dambe jabuuti ku eedanaa inkastuu kasoo noqday markaa wax nooga sheegtaa taabataa arrintaasi ninka qaasim wuxuu ku maqnaa iyo mataqaanaa xisbigiina waxa uu mataqaanaa hawsha uu usoo qabtay waxa weeyaan horta qaasim axmed diini waxaan ku leeyahay muddo badan baan soo wada shaqaynay isaga iyo alla yarxamu aabihiiba ma garatay iyo siyaasiyiin kaloo badan ma garanaysaa marka isagu tegidda halka jabuuti tegeyna wuxuu tegey hawl ma garatay siyaasadeed buu tegey markeedii horeba taasi waa mid hawshii siyaasadeed inuu soo arkay ahayd ma garatay siduu dalki yahay xagga maanta ururkaygu ka joogo xagga mucaaradku joogo waxa la samayn karo sidaad ogtahay xasan oo mudaaharaadkii bisha 18 December ka dhacay arxiba wadaweyd inuu ka khudbadeeyay khudbadiisina waa dhageysatay wuxuuna sii sheegay weji jadiida oo siyaasadeed in loo baahan yahay waa mas-uuliyiinta ururka mas-uuliyiinta kale wuu soo tashaday dibaddana wuu baxay ilaa baadiye wuu tegey wuu soo arkay ma garatay dhibaatooyinka jira warkii uu la soo noqday imka hadduu dhaqso usoo noqday oo arrimaha reer ahaaneed buu soo noqday halase aatee uu soo gaadhay si haddana taladan kasii xoojina magu tahay halkaa uu ay maanta arrinku marayo wax ma garatay dheeraada oo aan soo wadnahay waxa weeyaan oo qura waxa weeyaan isbedelka aan doonayno ururada mucaaradka inay yeelaan waayo dalkii nin baa ku durduriyey dalkii oo baabiyey dalkii maanta ajnabigii baa kusoo bato ummadii jabuuti baa ka batay oo waraaqa la siiyey marka waxa weeyaan doorasho haddii laga qayb galo iyadoo dibba loo wada control loo samayn ama la eeginba war dadka maxaa kusoo biiray ummad ahaan jabuuti maxaa u hadhay imisaa codayn karta imisaa xaq u leh inay codeeyaan imisaana xaq u lahayn sidee gul lagu gaari karaa sidee mustaqbal loo gaari karaa waxaas oo dhan baa meesha yaalla marka waxay u baahan tahay wax isbedel dhan oo siyaasadeed oo ma garatay ilaa gunta la qodo waa hawshaan jecelahay ma garatay marka mucaaradku isku yimaado aan ma garatay waxaan diyaarinay imka qoraalkii ayaan diyaarinay ma garatay shartkii positionka jihidka in ma garatay oo nin walba u diraynaa ku karaaliya iyo kuwan karaaliyahaynba ha eegaan ma garatay ha akristaan wax hadday ka jeedinayaan ma garatay ummadda soo hordhiyaan haddii wax dibadaliyaan kala sheegaan maftay marka waxa weeyaan mishankaa buu isagu tegay hawshaa buu tegay wuuna ka soo noqday wuuna ku noqon doonaa hawsha ma dhammaan wuuna ku noqon doonaa siduu isaguba kugu sheegay talo ma garatay guddiga sare ee ururka iyo AFD ama xaggan joogo ama isagu ha yimaado ama jabuuti ha joogo iyo kuwa jabuuti joogaba talada waa wadaagnaa tala aan wada rugno weeyaan taladaasina waa ma garatay weji jadiida keento xasanow waad mahadsan tahay